kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel waliba aad joogtaanba barnaamijkeena gabi ahaantiiba waxaynu ku faaqideynaa dagaalka xooggan ee ka soconaya dowlad deegaanka Soomaalida ee maalintii saddexaad gala u dhaxeeyay xoogagga al-shabaab iyo ciidanka dowlad deegaanka Soomaalida ee sida weyn u baadigoobaya xoogagga argagixisada ee sida weyn ugu dhumaalaysanaya gobolka Afdheer waxa ka soconaya dagaalo qaraar u dhaxeeya ciidanka deegaanka Soomaalida ee loo yaqaan liyu booliska iyo xoogagga argagixiso al-shabaab oo halkaas dagaalkii ugu cuslaa ka dhacayo sidoo kale barnaamijkeena waxaynu ku eegaynaa xogihii ugu dambeeyay iyo dagaalka goobaha la kala marayo ciidanka deegaanka iyo dowladda deegaanka Soomaalida iyo shacabka gobolka Afdheer oo si weyn ciidanka u garab istaagay dagaalkii ka dhacay 24 saac ee ugu dambeeyay gobolka Afdheer guulaha meesha la kala marayo ciidanka deegaanka sida ay uga hortageen looga mahad celiyay sidoo kale waxaynu haynaa xogo xasaasi ah oo ku saabsan dagaalkaasi waxa ku soo beegay waqtigan dagaalka al-shabaab ay waqtigan ku soo beegan ayaa la sheegay inay xoogagga al-shabaab ay dhiirigelin badan ka helaan siyaasiyiin aad u tiro badan oo Soomaalida dhexdeeda caanka ayadoo al-shabaab sida la wada ogsoon yahay waqtiyo badan oo Xasan Sheekh Maxamuud uu madaxweyne ka soo noqday dalka Soomaaliya ay weeraro xooggan ka geysteen dalalka dariska iyo gudaha deegaanada Soomaaliya xoogagga al-shabaab ayaa la sheegay waqti kasta oo madaxweynaha Soomaaliya waa Xasan Sheekh Maxamuud uu madaxweyne noqdo inay awoodooda iyo baawarkooda ay kor u sii kacaan ayadoo sidii la wada ogsoonaba xoogagga al-shabaab waayii hore Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha ma doorashooyinkii hore madaxweyne Farmaajo koor waa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay gudaha Kenya ay ka geysteen weeraro xooggan oo khasaariye dhimasho barakacyo waaweyn sababay sidoo kale Puntland ayaa ogeyd inay ku kiciyeen duulaan aad u culus oo maamulka Puntland ay la galeen dagaalo aad u qaran oo halkaas uu ka dhacay khasaari ugu badan al-shabaabna halkaas ay si weyn ugu jabeen weerarkan hadda ka soconaya dowlad deegaanka Soomaalida ayaa loo aananayaa inuu sal la leeyahay weeraro xooggan oo dhawaan ka dhacay dalalka dariska waa sida Kenya iyo maamulada Puntland iyo maamulo kale oo gudaha Soomaaliya barnaamijkeena gabi ahaantii waxaynu ku faaqideynaa dagaalka hadda socda sida ay uga hortagtay dowlad deegaanka Soomaalida sida looga abaabulay deegaanka Soomaalida gobolka Afdheer maamulkiisa iyo shacabkiisa sida ay u garab istaageen xoogagga liyu booliska ee dagaalka qaraar kula jira halkee meesha ugu dambeysay hadda la kala joogo dagaalka halka uu ka soconayo xoogagga al-shabaab khasaaraha soo gaaray ciidanka liyu booliska meesha uu wax maray duulaankii ugu dambeeyay goobaha hadda ay rasaatu sida xooggan uga soconayso ayadoon arintaasi si weyn ugu faaqideyno barnaamijkeena 10 daqiiqo soo socda barnaamijka waxa ay kala qayb galaya saaxiibkay Bidnaan oo si weyn ula socday xaaladihii ugu dambeeyay gobolka Afdheer ee dagaalada qaraar ay ka soconayaan ayadoo saacadihii la soo dhaafay la sheegay inay xoogaggaasi ay dhul god oo hawd oo ku yaala gobolka Afdheer ay halkaasi ay ka qoteen difaac aad u weyn haseeshee hubka noocyadiisa kala duwan halkaas la soo adeegsanayo Bidnaan waxa ugu dambeeyay sida wada ogsoonahay xoogagga al-shabaab weerar xooggan ay ku qaadeen dowlad deegaanka Soomaalida maalintii saddexaad buu dagaalkaasi galay sida la wada ogsoon yahay xaaladdu marka ka dambeysay way ka sii daraysaa dowladda deegaanka Soomaalida guulo hordhac ay sheeganaysaa xoogagga al-shabaab waxay sheegayaan dagaalyahanadooda wali inay dagaalka wadaan maxaa ugu dambeeyay shidey ma kor maasan tahay hadii aan ku bilowno horta khasaara rasmi ah oo ilaa hadda la xaqiijin karo ma jiro markii laga soo tago khasaara ba'an oo cad oo la arki karo oo loo geystay ciidamada argagixisada ee soo duulay gobolka Afdheer ee dowlad deegaanka Soomaalida sida hadda ila xogogaale ay sheegayaan amaba aan xiriira aan inta waaga bari ilaa hadda aan la sameeynay dagaalka saaka mar kale dib ayuu u bilowday si teelteel ah ayuu markan u socdaa wali waa hareeraysan yahay deegaanka markan hulul ee degmada Hargeysa waa Golder yaa markan hadda dagaalka markan ayuu ka socdaa ciidamada dowlad deegaanka liyu booliska ayaa ka gees markan iska hareerayay meel ay ka baxaan markan ma haystaan gawaaridii ciidanka ay wateen oo ilaa 16 gaarayay 8 kamid ah waxa gacanta ku dhigay ciidanka liyu booliska oo hadda hayo 7 kamid ah markan way gubeenba oo waa la soo bandhigay muuqaaladooda hadda sidoo kale waxay dowlad deegaanka ay sheegeen in saacadaha soo socdo inay soo bandhigi doonaan wixii meeyde iyo wixii markan la qabqabtay laakiin waxa ay xaqiijiyeen inaysan marna dhici karin inay ku sii noolaadaan gudaha dowlad deegaanka
dibna ay u noqdaan inta midna uma suurtagelayso dagaalkan ka soconaya afdheer waxaa la sheegay xoogaga argagixisada in ay galeen dhul qow ah sida loo yaqaan dhulka hawdka ee togaga iyo buur halka iskaga yimaadaan halkaasi marka ugu dambeysay ay xabadu ka dhacaysay ciidankuna ay sheegeen bal inay hareereeyeen meeshan ay galeen waa meel sidee ah ma meel u sahlaysa inay muddo dheer halkaas ku sii noolaadaan maya ma ahan meeshan budhi baa la yiraahdaa dadka yaqaan way garanayaan goldheer waa la yiraahdaa marka meeshan iyada waxa weeye sida iyaga ay rabeen ilaahay ma taqaanaa ma yeelin sida aan la wada soconaan ognahay deegaanka Ceelkardhi muxuu bishii hore waxay ciidanka New Police ay ka soo saareen god weyn meel la helamadow god aad u weyn oo hub ka buuxo oo beekaamiyo qoriya AK47 dishikaashi waxyaala aad u fara badan bay soo saareen taasi oo aad loola yaabana oo lahaa muxuu hubka intan leeg yaa watay marka iyagu waxay rabeen marka inay buurahaas Ceelkardhi inay galaan laakiin uma suurtagelin hadda meesha dagaalka uu ka socdo waxa way waa budhi ama mataqaana wax la yiraahdo mataqaana goldheer saas daraadeed marka haddii ay gudahaas buuraha ay geli lahaayeen waxaa dhici lahaa in dagaalka intan ka badan lahaa in khasaaraha mataqaana inta ka sii badan lahaa iyaga laftooda inaan loo geli lahayn laakiin ma suurtagelin meesha hadda ay joogaan meel waxa weeye lagu hareereeyay mana noqon karaan horna ma socon karaan saas daraadeed marka ciidanka New Police markii waxay bilaabeen marka howlgalkoodii ah inay toos xabada mataqaana ugu bilaabaan inkastoo ciidanka federaalka ay dhaheen anaa korka duqeynay idinka mataqaana hareereeya ku suga waayo waxaan la soconay habeenkii xalay ahaa inay ciidanka military Ethiopia inay soo direen drones korka sawirayay oo la socday ay dhaheen hadii aagaasi ay shacabka dhaweyn dhamaan dhulka la jareena markaana waan duqeynayna laakiin madaxweyne Mustafa Maxamed Umar uu ka diiday oo ciidanka New Police toos mataqaana ay u galeen ayna dhaheen annaga mataqaana deegaanka annaga waan ku filannahay oo muxuu argixisada soo duushay mataqaana deegaanka annaga u deelmeyno saas daraadeed shacabkii waa is abaabulay gobolka Afdheer iyo guud ahaan deegaanka waxay sameeyeen dhiirigelin inay u sameeyaan ciidanka New Police saad u keenayaan dhiig mataqaana shubayaan maxay qaybinayaan cuntooyin kala duwan mataqaana ay keenayaan iyadoo waliba xilligan ognahay inay abaaraha dhulka ay ka jiraan haddana muxuu ahaa jigjiga ilaa mataqaana gobolka Afdheer inta maanta mataqaana uu isku xiran yahay oo gabarida mataqaana ma istaagin waxaa la siinaya mural aan caadi ahayn ciidanka New Police waxaa la soo bandhigay ku dhawaad ilaa hadda mataqaana wax ku dhow 100 wax oo ciidanka mataqaana meesha ku soo duulay inay dhinteen dhimashada ciidanka New Police aad buu mataqaana u kooban yahay u yar yahay maadaama tactica fara badan ay qabeen dhulkana aad mataqaana u yaqaanaan oo dad dhulka yaqaan ay yihiin siisa marka qofka dhulka u yaqaan khasaariis mataqaana uu yaraanaya laakiin qofka markuu dhulka garanaynin khasaariis mataqaana aad buu badanaya marka ragganna waa rag la soo khalday mataqaana dhulka yaqaan mataqaana ma ahayn hadii dhulka yaqaanaan oo ma suurtageli leen maanta inay meeshan ay joogaan mar hore mataqaana Ceelkardhi dhulka mataqaana ay geli lahaayeen sidoo kale xogagan argagixisada ah waqti kasta ama waqtiyada ay weerarada qaadaan waxa la yiri waxay ku soo beegantaan waqtiyada Soomaaliya isbedel ku dhaco ama ay dawlad cusub timaado maxaa xogagan argagixisada ay waqti kasta oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Xasan Sheekh Maxamed waqtiyada uu madaxweynaha dalka Soomaaliya ka yahay weerarada qaadaan bal awoodooda kor bay u qaadaan dhiirigelinta xagee keenayaan ma la isdhihi karaa inay jawaab cad la bixinaynin ba ogyihiin mise hawlo kale wallahi xaqiiqada jirta waxa weeye sida hadda aan la wada soconay hay'adda NISA waxa loo magacaabay nin aad loogu tuhmay in markaas xiriir fiican la leeyahay taasi marka waxay keentay tuhmo fara badan oo Xasan Sheekh ku hareeraysan oo ahaa in isaga laftiisa xubno firfircoon in mataqaana uu ka yaqaan raggaasi ugu jiraan waxaan la soconay alcade wixii mataqaana dawladda Kenya ka qabsadaan la soconay xilligiisii waxaan la soconay Puntland in dhalinyaro sidan oo kale soo abaabulay in la soo geliyay oo Puntland lagu khalkhal gelinayay 2015 waa kay soo afjareen iyaga sidan oo kale midkan dhowr maalin dagaalka Soomaaliya ku soo qabqabteen maanta midkan baa mataqaana ay taagan wali wax ku soo beegmaysa iyadoo aan ognahay in Abiy Ahmed uu horey u sheegay in al-shabaab isku day doonaan inay gudaha Itoobiya inay soo galaan iyaga oo mataqaana ay doonayeen inay khasaara sidii ay cado kale ka geystaan waana mid hadda maanta dhacday oo taagan marka Xasan Sheekh farba ku gudan arinta ayada waxa kale oo xusid mudan oo aad mataqaana loo qariibsaday waxyaabaha isku soo beegay doorashadii hadda Xasan Sheekh uu qabsaday iyo dagaalkan hadda mataqaana ay taagan ciidankan yaa u sahlay inay mataqaana ay soo galaan ilaa imsay la abaabulay sidee loo ogaan waayay sirdoonka Itoobiya miyuu daciifay maxaa keenay Xasan Sheekh Itoobiya inay isku dhacaan ciidamadan xilliga mataqaana gudaha ay soo galaan dad ba markii shalay waxay hubiyeen magaca TPLF in mataqaana ay yihiin
laakiin xogaha rasmiga ee helay TPLF ma ahan laakiin se waxa weeye dad rabitaankooda ama ku shaqeyn doono ama la shaqeynay iyaga inay mataqana ay yihiin u badan yihiin laakiin si guudba ururka al-shabaab meeshaas galay maadaama iyaga ay sheegteen marka anagu waxaan leenahay ciidanka booliska mataqana ku filan yihiin way la soo afjar doonaan insha Allah saacadaha nagu soo aadan bidhaan aad iyo aad baad u mahadsantahay daawadayaalkaasi wuxuu ah bidhaan oo inala socodsiinaya xogihii ugu dambeeyey dagaalka qaraar ee ka soconaya dowlad deegaanka Soomaalida ee u dhaxeeya xogaga argagixisada ee al-shabaab iyo ciidanka dowlad deegaanka Soomaalida ee loo yaqaan Liyo booliska inta aynu barnaamij lamid ah ku kulmi doono nabadgelyo.